سفر دير أيال لقابلية سهيدنا وايرتا ماشونا ميل لقد معنا يا معها رحلة عصدير أو مهم كأ والنبي يقول إنه شيء صلى الله عليه وسلم هذو قفكم أنت عمل كيسينو جوا هيو إلا صدح موياني إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية ومساجد داس ومدارس داس وعيلش وقف كاه لقرها هيو وحيالها عام كا أو وقف كا أو إلهي اللي دوانه يقفك والسمين أيوه وعلم ينتفع به أقوان ولها أضدك أو بري أو لقو انتفاع أيوه وولد صالحة أو تربيي أو كد ذالي أو سود عيني صاحبك كوبات أو كهري أهلك مركي هرين وحالقي يابا إنين الإلهي الدمداف كوي دينين مالنا أين كوسو صدقين مشغولنا أي كويهين مرأي أوي هيان أو مرجيان إيا مرأي كدير ريان وحي أضوءات كلمة طاقتك وأي قيب سنية بل وحال جيابا قف أجنبي أو دحال كاغا عن وحبا كلهين إنه كاغا نعفي بطه وحويان عرور تاضا إيا حاسس كاغا إيا علمي آكتكت oo asagu markuu maqlay hebel waa dhintay saaxiib uu kala ahaa daraadeed ilaahay uu ku bariyo oo uu kugu murugaysan yahay ilaahay ku weydiinaya ilaahay inuu ku dambi dhaafo ayaguna ay ku dirirayaan oo ku murmayaan oo kala boobayaan dhaxalkaagi ay mashquul ku yihiin bal waxa laga yaabaa ahalkaaga qaar kamid ah cadow inay ku ahaayeen oo ay sugayeen geeridaada si ay maalka sida ay rabaan ugu tasarrufaan عرورتي يع كأورنيسي أو أتك إلى لنيسي ولا له أتك إلى لنيسي هوينك أتك إلى لنيسي أو قفل بعيل أنت لك رجعنا أو أورنا هيا أضج وغني بفخري نباتنا نوهيا الله مؤدو يدا مركتجو عدو إليهين وآدي قفر حيان وأين كوا مرجهين أي دعكت إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا وحاكمد حاسسكينا يا أولادينا وحاكمد كل جود معها وحاكمد كوا عدو دينا يا كدكتونات صاحب كاس لبات أو مالك أسقون وكاهري كبر راعين نبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي ابن آدم وحول لي يا مالكيغا وكفانيا وشيغانيا وكو أمانيا مال بولي هاي بكفانيا هانتيدا أولي مالكيغا أيو لي هاي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ابن آدم ومالك أنا كفاني سميات كل هاي إلا وحي آد عنتي أما آد حراتي أما آد هرمرستي مياه وحكلا مياه كلها حقيقة وحي تهي مالك وحا كل هاي انت حلقات عنتي ساكات كعنتي بريئات كعنيسد هدي إلهي كجارسيا نرى مرضى كحرنيسد جارجة كودت انت يرتا أو كجو وريجي سايات كل هاي waxa akoonada yaala waxa daaraha ku jira waxa dhulka ku jira waxa beeraha adigu waad ka tagaysaa malihid inta aad ku nacfinaysid baa kale iyo wixii aad hormarsatay oo kaliya walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min mali qofkee maalka waaridka dhaxlaya maalkiisa ka jecel maalkiisa asagu u gooni u leeyahay مركز الصحابة وحيا ما منا أحد إلا وماله أحب إليه قفنا جنبه ما بتشربه إلا مالك أسقوا ليه هيوم بتشعليا متك ضدك أي نحل يانو قاضنا يا وحك تشعليا متك أسقوا قاضنا يوليه مركز النبي يقول فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر مالك سقفك ليه أو ضبطه ومتك أهر مرصده midka uunan lahayn oo laga dhaxlayana waa midka uu ka tagay weeye ka asagu mal walidaalika qofka maal waxa uu midka asagu oo hormarsaday oo uu aakhira geystay oo asagoo nool uu baxsaday baa maal
بعض الصالحين با waxa lagu yiri dadku maxay geerida u nacayaan qof kasta dhimashada waa nacabi dil yiri caawa dhimanaysa ama bari baa dhimanaysa cunada waa ka soomayaaba cabsi baa soo food saaraysa markaasuu wixii waxa loo nacayaa waxa weeye litacdimika dunya adduunyada weyneynaysa oo kala weyn jacalta maalaka bayna aynayk maalkaagi baa waxa uu taagan yahay indhahaaga hortooda markaas maalkan diidaysa inaad faaruqdido ka tagtid haddaad maalkan hormarin lahayd waxaad jeclaan lahayd inaad ka daba tagtid oo qofku markuu maalka hormarsado wuxuu aaminayaa wax wanaagsan inay ka horeeyaan noloshaan oo dhan buu iska nacahayaa inuu horay u socdo ayuu jeclaanayaa laakiin markii uu maalkiisa u celcelinayo oo maalku hortiisa dhooban yahay inuu faaruqa ayuu nacaya oo ka dhinto saaxiibka saddexaadi waxa weeyaan camalka waa saaxiibka dhabta ah waa midka qabriga kula galahaya oo markii caruurtaadu ka tagta kugu harahaya waa midka maalkaagu markuu ka tago ka laabto kugu harahaya qabrigu kugula jooga ku faaruqi mahayo marka soo baxdina waa kala soo baxaya mawaaqifta qiyaamaha dhan buu kala maraya siraadka ayaad ku maraysaa miisaanka ayaa lagu saaraya jannada meesha ka dagi lahayd ama qofku naarta meeshu ka dagi lahaa waxa lagu qaybinayaa amalkaas lagu dhifanaya lagu qaybinaya man amila salihan falinafsi waman asaa fa'alayha qofkii amal salih sameeya naftiisu u daneey qofkii xumeeya amalkiisana naftiisa ayay ka go'aanta dushiisa yaad bal amalkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala qofka inuu gobol u noqonahayo man kafara fa alayhi kufru waman amila salihan fali anfusihim yamhadun qofkii gaalooba asaga dushiisa ahaatay isaga ka go'anta qofkii amal salih sameeyana naftiisa ayuu gogol xaaray oo gogol u dhigay amalkaagu wuxuu ku noqonayaa barkintii joodarigi go'i aad huwan lahayd meeshii aad seexan lahayd guriga aad degi lahayd amalkaaga ayaa ku noqonahay hadduu xun yahayna waa xumaaday gogol xun oo cadaab ah goox cadaab ah barkin cadaab ah guri cadaab ah ayuu ku dajinayaa hadduu wanaagsan yahayna waa ku wanaagsanaaday kulligood waxay ku noqonayaan nimco iyo janno walidaalika ba waxay ahlu cilmigu yiraahdaan alcaaqil qofka caaqilka ah oo aan doqonka ahayn oo aan dabaalka ahayn ee caaqilka ah waa qofka waxa weeyaan guriga muddo dheer uu degnaanaya camiraha walowba ha ku camiro inuu soo gada gurigii oo mar dhow ka guurahayo adduunyada haba ku camiro qofka guriga uu og yahay inuu muddo dheer uu degnaanayo qofka guriga maal galiya oo camira oo juhdi ku bixiya hada huwa alcaaqil waa guriga qabriga weey walow haba ku kalifto inuu gurigu mar dhow ka guurayo adduunyada intuu iibiyo suuqa geeyo oo midka rasmiga ku camiraba ha gaarto arintu walidaalika boqorkii la oran jiray boqor Khalid oo boqor Fahd ka horeeyay Sacuudiga ayaa waxa la yiraahdaa wuxuu soo booqday Allaamat ibn Uthaymin caalimkii culimada Sacuudiga kamid ahaa Muhammad bin Salih al-Uthaymin markuu salaamay oo gurigiisa ugu yimid buu la yaabay guriga qaab daradiisa iyo sidoo gurigu burbur u yahay iyo sidoo gurigu uusan ugu qalmin ninkan caalimka ah oo culimada waaweyn ah iyo guriga uu degan yahay buu la yaabay saysan munaasib iskugu ahayn markaas wuxuu ku yiri waxaan ku amrayaa xaafadaas in laga dhiso guri weyn oo caalimnimadaada munaasib ku ah dadka aad ku qaabishid fadhi weyn leh maktabadu ay kugu taalo guri weyn habaysan ah ayaan amrayaa in lagu dhiso markaas Allaamat ibn Uthaymin wuxuu yiri guri baa jira hawshiisa hadda aan wadno oo waxa weeyaa shaqadiisa dhismihiisa aan ku jirno oo mar dhowna aan u guuri doono xaafad heblana aan ka dhisayna ayaa jira iska daa waa yahay buu khalaas iska daa dadkii sheekha xirtiisa ahaaba waxay yiraahdeen ya sheekh
xaafadda aalada guri baan ka dhisaynaa oo hawshiisa socoto oo gabagaba ah oo u guuri doona aaladaha anaga guri aaladaha kuma ogin wuxuu yahay gurigaas markaasuu yiri xaafadaas oo xaafadda maqbarada iyo quburuhu ku yaalaan ma aha guriga aan dhisaynaa waa amalkan hadda aan wadno ayaa halka guri nooga dhisahaya asagaana u guuri doona oo degi doona asagaana rasmi ah sabtigii dhaweyto oo la soo dhaafay ayaa waxaan raacay diyaarad safar yar oo aan ku tagay gobolada meel ka mid nin baa dhinacayga fadhiyay ninka daadiisu 45 sano meelahaas waa nin ganacsada oo shaqaysta xajkii dhaweytana waa ku arkay sheeka markaan na dhex martay ayuu wuxuu yiri aniga karfantii la igu karfani lahaa waa ii diyaarsantaa meel bay taala deyna la igu male waana ibsada karfantay oo waa yarta 45 sano ba jirtaan dhalinyaro ganacsadaha tahay acmaartii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo yiri acmaaru ummati ma bayna 60 ila 70 ummadayda cimrigeedu waa 60 ila 70 wax dhaafayaaba iska yar cimrigii 70 marka laga soo qaado laba kamida xaggan mariyay buu yiri midkii kale aan ku dhex jiraa inay bari noqon doonto inay saadaba noqon doontona ma ogi deyna ina qaato diyaaru ma ahi karfantayduna waa ii taala waxaana ku qoostay buu yiri xamar waxa ka dhacay oo aan goobjoog u ahay maalin walba oo saaxiibaday oo kala duwan mid iga yar iyo mid iga weyn iyo mid ila eg mid kasta intuu soo toosay asagoo shaqo u socda oo hamigiisu yahay waxa iyo waxa qabatid oo hadhowta lagu siday hilbihiisii bac oo fahmi ah marka aan arkay ayaan is aruuriyay buu daartan aad ka guuraysid oo aad hubtid inaad ka guuraysid ayna tanzilu qadan xagee degaysaa guriga aad degaysaa waa xagee guriga marka aad degaysid magacaagu uu harahayo oo lagu leeyahay meydka oo qaraaba aynan ku soo booqanahayn oo maalkaaga la wareegahayo adiguna halkaas aad ku tahay maxbuus waa daartee wax dheer kaama faga waa meesha shala geysay walaalka adeerka saaxiibka qaraabadaadii meesha u sii waday ayaa maalmo yar laga yaabaa inay ku dhimanta ama ay saacada ay kaaga dhimanta ayaa laga yaabaa walidaalika ahli cilmigu waxay yiraahdaan i'mal lid-dunya ala qadri mukthika fiha adduunyada u amal falo u shaqayso inta aan nagaanaysid ku jaango wa'mal lil-aakhirah على قدر مكثك فيها آخرنا واحد عمل فلتا انت آد نغانيس الدنيا واحد نغانيس واتقانا waxaa laga yaabaa boqolba weliga inaad gaari ku jaango marka waxa istiraahdaa boqolba ka soo qaad waxaan aad haysid oo aad dhistay oo aad tabacday boqol maahana boqolaal sano sii soconayo soo gaabi marka maadaama ayadii waqtigeedii uu yar yahay inta aad nagaanaysid ku jaango aakhirana waxaad u amal fashaa inta aad nagaanaysid waa imisa waa meel aan laga soo laabanahayn hadii mar la aado khabarkuna uu tago aan laga soo laabanahayn meeqaan qaadnay oo geynay aan is aruurino aan ilaahay u toobadkeenno aan istighfaarta badino aan cafis raadino cidii aan dulminay aan waxa aan haysanno إلهي أقول دوانا سبحانه وتعالى